السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا قيمها بدن كسو دوادا موقال كلو قيمة بدن فضلا هديات كعصوبتا هاي جنال كان سبسكرايب نوصار موقال كان لايك صار قيبتو سي كومنتس كان إنولو وداك وحي فكري فعلا يا ديري قلنبا مهدساني maanta waxaan ooga hadli doonaa muuqaalkan maalmahan sida wada ognahay waxaa baraha bulshada ku soo batay arinka ah in ay soo baxeen kaba aan horey loo arag oo lagu magac daray kabaha shaydaanka. waxaan horey u aragnay dhar lagu soo qoray magaca Allah iyo nabigeena sharafta badan aan ku sallino sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale waxaan ku aragnay arinka kaba ay ku qoran yihiin waxay ahayd arin looga soo horjeedo diinta islaamka waxaana ku lug lahaayeen shirkado caan ah iyo shakhsiyaad qaas ah. maantana waa arin kaloo taa ka duwan. waa wax caadi ah in aad aragtay ama xiratay kabo ama dhar ay soo saartay shirkada caanka ah ee Nike, balse markan waa kabo ka duwan kuwii hore. kuwani waa kabo lagu magac daray kabihii shaydaanka. fanaan ka soo jeedo dalka America ee magaciisu yahay Lil Nas X waa 21 jir isla markaana caanka ah baraha bulshada ayaa go'aansaday soo saaridda kabahan oo noocoodu yahay kuwa aan horey loo arag. kabahan waxaa ku jira calaamado aan macnahooda la aqoon. shirkadda ayaa markeedii ugu horeysay xaqiijisay in ay soo saartay 666 joog oo kabaha noocaan ah, waxayna sheegtay in halkii joog qiimihiisu yahay $18. waxaa kaloo la sheegay dunidana la yaab ku noqotay in kab walbo kabahani ka mid ah ay ku jirto dhibic dhiiga. dhiigaasina ma aha dhiig xayawaan ee waa dhiig dad. lama ogo lamana xaqiijin sababta loogu daray dhiigan kabaha, maxayna faa'iido u leedahay lama xaqiijin lahaa oo waxyaabaha ay dadka la yaaban yihiin. waxaa la sheegay in fanaankan arinkan ay ka caawiyeen kambaniga MSCHF magaciisa loo soo gaabiyo iyo shirkadda soo saarta kabaha ee Nike, balse Nike ayaa sheegtay in arinkan aysan ku lug lahayn kabahan aysan ka qayb qaadan soo saaridooda. fanaankan ay dacwad ka gudbin doonto balse arinkan ma caddo ilaa hadda. kabahan ayaa hadeetan ay xiiseynayaan dadka qaar ay u badan yihiin dhalinyarta, waxayna u arkaan in ay tahay fashion cusub iyo naqshad cusub. shakhsigan heesaaga ah ee soo saaray kaba noocaan horey loo arag haddana nafsad ahaantiisa aan u fiirino waxa uu yahay waa qof aan haysan diinta islaamka marka koowaad. marka labaad waa qof qaniisa isla markaana taageera laba qof oo isku jinsi ah inay is aroosaan. mana jirto sabab aan u xiran karno kabihiisa sababtoo ah gabi ahaan waxay ka soo horjeedaan diinta islaamka. waxaan kaaga digayaa in aad xirato kabahan aan wax faa'iido lahayn isla markaana diinteena islaamka sharafta badan leh ka soo horjeeda. walaal sii faafi fiidiyogan si walaalkaaga muslimka ah oogaga faa'iido, adigana waxay kuu tahay ajir. haddaad ku cusub tahay janalkan waad nagu soo biiri kartaa, janalkana subscribe waa saari kartaa. fiidiyogan si uu u faafo fadlan like garee. mahadsanid.